daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij yar oo kooban oo gaar ah oo aan ku casuunay hobalka abwaanka fanaanka caanka Shiine Cabdullaahi Cali oo ku magac dheer Shiine Akhyaar oo dhawaan booqasho loogu yimid magaalada London ee dalka Ingiriiska. Barnaamijkan kooban waxaan ku wareysan doonaa Shiine socodkiisa sababta uu yimid iyo waliba Muqdisho mar uu tagay. Shiine ku soo dhawow barnaamijka Home Cable TV. duraan waa dhawahay waana ka mahad celinaya aad baa u maadsantahay caawani adaa sayna u malaynaya mar waagi hore heesaha laga wareysan jiray si kala caaw isu wareysanayna Shiine kooxda waayaha isku goorma asaastay waxaan asaasnay 2004 maxay ahayd sababta oo asaastay waxay ahayd inaanu ka qayb qaadano dib u dhiska dib u heshiisiinta nabadda iyo xasiloonida intii aad ku jirtay hawshaas ma jirtaa caqabado kula soo kulmay kooxda waayaha way iska badan yihiin mar walba oo heer gaadidba caqabado si badanaysa laakiin waxay ujeedadooduna ahayd in la ku niyad jabiyo ama hawsha fiican bulshada u hayna la ka leexiyo laakiin uma joojin Shiine inta badan dadku markii murtidiina iyo heesiina uu fiiriyo wuxuu idinku xataa inaad hal dhan u xaqlinaysaan oo aad u taageertaan markiis qoladii xukuumadda haysa baraarujin aad ku sameysaan dhanka kale oo wiilasha dhalinyaradaana aad xoogaa aad ugu tuurtaan marka ma isku daydeen inaad xataa ayaga laftirkooda aad baraarujin ku sameysaan oo kor ku soo qaadaan niyadooda runtii horta waa muqadas xukuumad walba ama dawlad walba jira in la taageero ha ta fiicnaato laakiin wax walba ka muhiimsan in jiritaanka nabadeed dawladnimo wax bedelo wanaagsan maahan inaan xumaan lagu bedelin waana taageerna muqadas anaga taa talabaad dhalinyaradu hadii ayagu ay garan waayeen inay hooyadoodii walaashood badbaadiyaan hadii garan waayeen inay magaca Soomaali ay ilaaliyaan hadii u soo jeesteen inay sidii dhurwaaga dadka cunaan hadii raba in dhurwaaga laftigiisa cunaan hadii runtii in laga hadlo oo bulshada laga wacyi geliyo waxa u tahay badbaadada naftooda waxa u tahay bulshada Soomaali waxa u tahay bariga Afrika caalamka dhan baa Shiine hadda ka hor waxaan ugu maqaalaa in aad murti aad qaadeen xogaa dhibaato idinka soo gaartay idinka kooxaha waayaha cusub dhibaatada ka soo gaartay intee la ekay magaalada Nairobi runtii waxa la yiraahdaa laa yaxsa walaa yu'dad runtii in ma iskan wata marnaa laakiin muhiimadu waxa waaye dhibka nagu dhaca uu badan yahay uu fara badan yahay laakiin dhibkaas oo dhan uma aragno mid qaala darro uma aragno kama soo qaadno in dhib aragno sababtoo shaqada aan qabanayno wax walba oo la isku day in isbaaran la kugu dhigo waana isku dayna inaan qadarin dhagaha indhaha ka xirana waana sababta aan heerkan ku soo gaarnay bulshadeenadiina maanta waxa la qaybsanayno Shiine kooxdina waayaha cusub waa dhalinyaro aad u furfurcoon waxaanad moodaa kooxaha Soomaaliyeed ee jira inay safka hore kaga jiraan oo caalamka oo dhan xataa idin aqoonsan yahay oo teeriya casuumaad aad ka heshaan Mareykan iyo Yurub taamba sida hadda aad ku socotaba maxaa idin gaarsiiyay inaad heerkaas gaartaan runtii waxaa la gaarsiiyay isku xirnaanshaha dhalinta waayaha cusub jacaylka ka dhaxeeya dhalinta waayaha cusub haadwooga ama shaqada dhabta ay qabanayaan oo runtii aan ku salaysnayn lacag inay sameeyaan aan ku salaysnayn inay nolol kale ka sameystaan ay ka dhab tahay in bulshada ay ka dhasheen wax ugu qabtaan si wanaagsan waxa taas cadeyn u ah runtii maanta oo qurbaha aan wareegayo dhalinyarada waayaha cusubna laftigooda ay ila mid yihiin ama aan matalayo ama ayagu xilli dhow ay imaanayaan runtii naftanada iyo interest hada u shaqeysanayno Yurub iyo Mareykan bas ka joognahay si wanaagsan oo maanta konton $100 u kala gadanayo laakiin waxaanu ka doorbidnay hadafkanaga inaanu ka dhabayno ah shacabkana wax la qaybsano bulshadana aan ku dhex jirno xamar iyo afgooyaan haday nabad noqoto u guuray baydhabo iyo Kismaayo iyo Laagarow runtii waa mid maanta heerkana gaarsiisay waxaan aaminsanahay hadii dhalinta waayaha cusub oo waliba helaya taageerada shacabka Soomaali boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay in adduunka aanu heer magac weyn Soomaali ku soo yeelay Shiine intii aad Nairobi joogteen ma tagteen dhulkii hooyo meesha doontaba ha ahaato koonfurta Muqdisho ha ahaato Puntland Somaliland ha ahaato ma tagteen runtii waxaanu tagnay inta ummadda Soomaali ay ku nooshahay oo dhan because waa ummad isku mid ah waa ummad aanu wada dhalanay wadamada rabaan iyo boordarada rabaan ku jiraan wax ayagu macna ay rabaan dabcan laakiin waxaanu tagnay 2009kii gobolada Puntland oo Soomaaliya waxaanu ogaa inaanu bila aan ku maqnayn Gaalkacyo ilaa Boosaaso sidoo kale waxaanu tagnay qaybta Galmudug ee Gaalkacyo oo runtii xilligaas gudoomiyihii nagu casuumay waxaanu tagnay maamulka Somaliland oo runtii magaalada Hargeysa aan wiiga aan iska joognay waxaanu tagnay gobolka
ismaamulka Soomaalida Ethiopia oo runtii xarunta jigjiga dhagax buur ilaa dir dhaba ilaa harar xataa kilka Oromadana tagnay iyo kilka Harariyiinta runtii ujeedkanagu ahaa inaanu shacabka Soomaali ee halkaas ku dhaqan aanu la qaadano ishaag farxad inaanu nabadda iyo diilada aanu taageerno runtii waxaanu tagnay Soomaalida ku dhaqano istan oo ilaa mandheer ilaa xiriiq qaxootiga aanu anagu ahaynba dadkii ugaalida ka cunay ama shubada ka cunay runtii waxaanu tagnay magaalada Muqdisho oo aan dhowr jeer iskaga dabalaabanay hadda waxaan ognahay in qaar ka mid ah inta cusub ay safar ugu kala maqan yihiin gobolada Soomaaliya koonfureed anaguna waxa hadda ka imid gobolka magaalada Muqdisho iyo ilaa Afgooy runtii waa mar walbana hadda xataa ka maqanahay waa dad iyo deegaan dareenka aanu ka ognahay aanu la qabno hadii aanu sanad ka maqano ku soo laaban waa ogna waxaan ugu soo laabanayno because waa dadka u shaqeynayno waa kuwa aragno inaan la noolaano waa kuwa aragno inaan ka tagin waa kuwa aragno inaan cimri la qaadano shiina inta aad Muqdisho joogtay mar aad sac warbaahinta ka hadlaysay waxaad sheegtay inaad abuuraysid barnaamij wacyigelin iyo tabarucaad isugu jira barnaamijkaasi aad sheegtay in aad ku samayn doonto gobolada Soomaaliya oo dhan ma ku tala jirtaa goboladii inaad hawshaas ka sii wado waxaanu barnaamij waxa la Somali Sunrise waa midka aanu wadno aanu Mareykanka soo bilownay aanu ishaag London hadda u nimid dhalinta waya cusub bisha May oo imaanayaan magaalada London iyo qaaradda Yurub ayagoo wacdaraha fankooda ka bandhigaya si bulshada Soomaali taageero uga raadiyaan in dib u dhiska dalka iyo dib u dejinta iyo tabarucaadka uga qayb qaataan runtii ujeedka halkan u imaanayna waxa waaye in maaha fanaaniin kaliya laakiin war hadaa tahay ninka muusikada garaaca hal bil kaliya xamar noo raac umada Soomaali intii muusik rato 10 qof soo garaac hadaa tahay cameraman kaale hal hees ama labaas soo tub hadaa tahay dhakhtar malaariyada kaale hal bil ama 10 bari oo tabarucaad malaariya xamarkaas ama Afgooy ama Jowhar ama gada ka soo dadka waqti la soo qaado ujeedka horta waa taas hadaa tahay xisaabiye kaale bangiyada xisaabiye la yahay kaale umada tabarucaad 10 bari si la isku daydaydo aan u sameeyno runtii waa antiga Mareykanka ayaa waxa dhacday gobolka Minnesota baa waxaanu tagnay meel home shelter ah oo 7,000 qof inta laga sii qaday qoraayo cashariye 7,000 sirna taalo dadku waa ka shaqeynayna si aan experience uga han tabarucaad naga ahayd alaabta u dhaqayna qaar inta u karinaynay markii meeshii xilliga qaadal gaaray dadkii sidii maqaaxi macna kuwa wali firsarada feel loo soo galay qof baa saantiisa kurta saacibta ana u saf garaynayna markii hawshii dhameeyay ba jikada waxaan ku arkay cuntada ninka guraya iyo ninka weelasha dhaqaya iyo midka dadka tiishka u diyaarinaya kuwa dhanba waa dadka maamulka gobolka Minnesota ugu weynaa iyo ganacsatada oo maalmo ka hor aan la soo kulmay kulan aan la soo qaatay baa iga horeeyay meeshii waxaan ku yiri soo xujiraan meesha ma ka shaqeysaan waxa la yiri every talaada walba meeshaan ku qorana wiilkaygu maalin walba khamiis uu yimaada naagteedu jimcada ayadaaba iska lehba axadana kurtigeen baa wada nimaana u shaqeynaa oo voluntary baan ku shaqeynaa si tabarucaad waa ninkii ugu sareeyay waa kii ugu yara waa dadkii waxa caawinayaan oo cunto u karinayaan oo dad ma lacagta bixiyaan maaha dadka ugu jiraan oo dadkaas ku raaxaysanayaan fuqarada ah oo meel haysan macnaha calaaqaadka ka dhaxay fiiri ninkii taajirka ah dadka iska qarin lahaa iyo kii dal gobolka xukumay يكيب بوليس كها يا مساكينتي علاقاتها كده حيفير runtii inta u baahna waa intaas inta u baahna waxa waaye war ummadanada inta nada liidata inta nada ladan aanu isku furno sida 10 kaas oo kale waa midda aan rabno inaanu dalka ka hirgelino aanu la nimid aanu rabno in madaxda Soomaaliya shacabka Soomaali ay dhaxgeli karaan ay la cuntayn karaan ay guryaha ugu tagi karaan aysan iska weyneyn karin runtii waxa aaminsanahay in kalsooni badan ay abuurmayso waxaanu tagnay magaalada Muqdisho aan joognay deegaano dhow dhanba tagnay Afgooy aad tagteen magaalooyin kala tagteen marka iyo runtii Rosaariya la socday iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka ku-xigeenka iyo madaxweynaha sugida Soomaaliya NSS waxa dhamaan la socday laakiin mar walba waxaan anagu fikirka aan wadnay ay la qaatin dawladdu in aanu ka aragnay in ayaguna u shaqeynaya u bisilihiin in runtii casharadii aan Minnesota ku soo arkay inay fuliyaan waa yaashino aad baad maasashine hadda safarkaaga halkan muxuu ku salaysan yahay wuxuu ku salaysan yahay laba waxyaalood kow inaan u gogol xaaro dhalinta waayaa cusub oo imaanaysa dhamaantood bisha May ayagoo halkan ka bilaabay tour ilaa Norway
Soomaalidu u baahan tahay si fariintanada iyo xaq iyo nabadan iyo wacyigelinta iyo bulshada aan la qaybsano una gaarsiino wacdaraha faneed ee waayaha cusub ee qaaradan looga xiisa qabana bulshada ay isku arkaan oo gaam u soo dhaxayn runtii waa mid koobaad aan u mid waaye talabaad aan u mid waxa waa iyadana muhiim kale ah in aanu abuurno aanu sameeyno campaign-kii Somali Sunrise oo lacag inaan dadka qaadno maaha laakiin dadka naftooda inaanu ku soo darno oo dhinaana walaal ma jaxmar aadayna wax walba waan diyaarna walaal maxaa taqaana maxaa qaban kada dhakhtar baa kaal intaanu show wadno dadka maalmaha ku siinayna dadka aad tabarcad ku daweysid walaal maxaa taqaana adigu cameraman baa walaal soo bax dad waxaan ku hayaa kun heesay saxbad duwan kar lacagaysan tabarucaad ninkii hebel oo aanka ahaa iro oo ingiriiska joogo baa maanta ama nabiil maanta u soo dubaya macnaha noo tahay guul runtii waxaan rabaa inaga waxa hawshaas iga caawinay magaalada ingiriiska oo igu soo hawshan waday oo nala shaqeynayay urur dhalinyaro ama hay'ad dhalinyaro Soomaali leeyihiin oo la yiraahdo Ofsam oo runtii nabiiliyo waa runtii madax ka yihiin oo runtii igala shaqeynay waana ka dhaadhicina laftigooda in ay diyaar u yihiin inay raacaanba habeen dambe waxa la ii sheegay in aad isu imaatay leey muxuu ku saabsan yahay isu imaadkaas maasha waxa waaye waa casho kulan casho oo dhex maraya أنا أعلنت وها أسوق الصعدة هي كوميونيتيga Soomaalida ku dhaqan magaalada iyo agaaradeedaba taasoo ah xog waraysi sidoo kalena aan ugu soo gudbino runtii codsiyo badan nooga yimid dadka ku dhaqan magaalada London imaantiina dabana aad uga dhaadhicin codsiyoda aan uga aqbalno sidoo kale tana aanu fikirkan u soo bandhigno wariyaan raacaya wax badan ba waxa aragteen dad idin yimaado lacag keena waxa aragteen dad yiraahdo ii sheeg tabarucaad dahabyo keena maanta maaha this time waxa waa naftaada keen si wanaagsan صباح را نلعب خميس بحيا جماعة بحيسة runtii ujeedkan oo taas ma sha Allah shiina aad baad u mahadsantahay aan xasuusiyo goobta madasha habeen dambe xafladda ama cashada ay ka dhacayso waa Savana Hotel oo ku yaala Oxbridge Road Shepherdbush waa xaafadda Shepherdbush waa Savana Restaurant Oxbridge Road xaafadda Shepherdbush waa ka soo horjeeda Blue Ocean maqaayada cusub ee laga furay habeen dambe waxa isku arki doona waayaha cusub iyo bahda Soomaaliyeed ama jaalada Soomaaliyeed ku nool dalkan Ingiriiska isla marantaasna sida shiina sheegay isku xog wareysan doona iskana dhaadhicin doona kana tashan doona wixii la qaban karo iyo ogeysiiska waayaha cusub ee imaan doona bisha May ee isla sanadkan intaan dib dambe u kulmi doona aniga iyo shiina wada jira waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo